بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan qiyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada qubanaha caawa iyo barrow show waa 26 August sanadka 2025 qodobada aan idinkugu hayo waxa kamid ah dalka Turkiga ayaa qaaday tallaabooyin u muuqanaya diyaar garow dagaal iyadoo magaalooyin ay kamid tahay Ankara la bilaabay in la diyaariyo godad dhulka hoostiisa ah oo bankaris loo yaqaano ujeedadana ay tahay in lagu badbaadiyo dadka haddii dagaallo waaweyn ay dowladdaasi gasho aragtidan waxaa ka shaqaynaya wasaaradda deegaanka waxaana alabuurkan iska lahaa hay-adda sirdoonka waddankaasi ee MIT-da loo yaqaano haddaba maxaa ku qasbaya dowladda Rajab Tayyip Erdogan inay tallaabooyinkan qaado xilli isbedello waaweyn oo amni ay caalamka ka dhacayaan suuragal miyay tahay dowladda Ankara muddo 5 sano gudahooda inay wajahi karayso dagaal ballaaran oo ay qayb ka noqoto xasaradaha waaweyn ee caalamka ka taagan waxaa la saadaalinayaa markastaba inay suuragal noqon karto isku dhac dhexmara dowladaha Ankara iyo Tel Aviv sida qubarada amniga taxliilanaya caawa ay tilmaamayaan warbixin xasaasi ah oo baahiyay telefishinka NTV la yiraahdo ee dalkaasi Turkiga ayaan idinla wadaagi doonaa inta barnaamijka aan wada joogno boqortooyada Sacuudi Arabiyana waxa ay si weyn u dhalishay nidaamka Israa'iil oo hogaamiye ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu waxana ay ku tilmaameen in uu ka shaqeynayo kala qaybinta waddanka Syria taas oo qadcas u ah wadamada islaamka iyo guud ahaanba dunida carabta haddaba carabtu xilligan waxa la gaaray goortii ay ogaan lahaayeen awoodooda ku aadan isbedelada adduunka ka dhacaya istijaabinta dagaalada xilli Sacuudiga maalmihii ugu dambeysay dhaqaalaha ugu badan ku bixinaysa diyaarinta ciidamadeeda iyadoo iibsanaysa gantaalada difaaca hawada ee faadka loo yaqaano haddaba dalacayn kala duwan ayaa saacadaha la soo dhaafay dowladaha carabtu ay jeediyeen yaa kamid ah barnaamijka ayaan ku dul istaagi doonaa inta aan wada joogno dalalka Australia iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran waxay hadda ka dhex taagan xiisad aad u ballaaran jeer xitaa ciidamada labada dal loo kala aqoonsaday urur gaxiso dowladda Bahrain ayaa ciidamada waddanka Australia ku tilmaantay inay yihiin kuwa argagixiso halka ciidamada Australiana ama dalka Australiana ciidamada ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Iran ay u aqoonsadeen kooxo argagixiso ay muhiim tahay in laga hor yimaado qodobadaas ayaan ku faaqadayaa caawa warar diblomaasiyadeed iyo kuwa dagaal iyo waliba isbedelada waaweyn ee ka dhacaya gobolka bariga dhexe Cabdicasiis Barrow ayaan ahay qubanaha labaad ee barnaamijka Barrow Show ayaa daawanaysaan akhyaaray meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada YouTube-ka subscribe saara aad baad u mahadsantihiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar waxaan ku hormarayaa waddanka Turkiga iyo tallaabooyinka dowladda Rajab Tayyip Erdogan oo hogaamiye ay ku dhaqaaqayaan qaar ka mid ah warbaahinta gobolka bariga dhexe ayaa bilaabay in ay tafaasiil ka bixiyaan qorshe iyo tallaabooyin militari oo dowladda Turkiga ay qaaday maalmihii la soo dhaafay kuwaas oo noqon doona mashruuc ballaaran oo guud ahaanba waddankaasi laga hirgelinayo waa samaynta godad waaweyn oo loogu talagalay badbaado umadeed haddii waddankaasi uu dagaal galo kaas oo hadda laga bilaabay qorshihiisii ugu horeeyay magaalada Ankara sida ay ku waramayaan qubaro kala duwan oo la hadlay telefishinka NTV ee laga leeyahay waddankaasi godadkan ayaa ujeedadiisa waxay tahay in looga hortago in dadka ay masiibooyin la kulmaan haddii dagaallo waaweyn la wajaho waxaana Ankara ay doonaysaa inay siiso mudnaanta koowaad magaalada loo calaamadeeyo Ankara taas oo ay ku nool yihiin dad fara badan oo malaayiin gaaraya sida ay warbaahintooda ku waramayaan mashruucan ayaa waxa uu leeyahay ilaa iyo 2 ama 3 ujeedo oo waaweyn waxaana kamid ah waxa la qorsheynayaa in la dhiso godad dhulka hoostiisa ah oo bankaris ah oo loo isticmaalo xaaladda degdega ah ee dagaalka ama qataraha amni iyadoo laga faa'iideysanayo waayo aragnimada caalamiga ah sida Israa'iil, Japan iyo waliba Switzerland sida lagu sheegay warbixin ay qortay ama uu qoray wargeyska la yiraahdo Turkey Today hay-adaha fulinta ayaa sidoo kale mashruucan muhiimad gooniya u leeyahay waxa la yiraahdaa mashruucan waxa gacanta ku haya hay-adda la yiraahdo TOKI
maamulka dhismaha ee ballaaran ee turkiga oo ka howlgelin doona baa layidhi ama samayn doona ilaa iyo 80 goobood oo kala duwan oo guud ahaanbaa dalkaasi laga samaynayo. ankara waxay mudnaanta koowaad siinaysaa baa layidhi inay noqoto meesha ugu horeysa ee mashruucan laga hirgeliyo, taasi oo muujinaysa muhiimadda dowladdu ay siinayso caasimadda marka laga hadlayo badbaadada dadweynaha. marka si guud loo eego tallaabooyinkan waxay ku soo aadayaan iyadoo dowladda ankara iyo sidoo kale Tel Aviv waayadii ugu dambeeyey ay u muuqanayeen inay aad ugu sii dhowaanayaan tallaabooyin suuragal ka dhigi kara in ciidamadoodu ay dagaalamaan. waxaase xiisadu ay kor u sii kacday markii dagaalada waddanka Syria looga guulaystay dowladdii Bashar al-Assad, islamarkaana talada uu gacanta ku dhigay Ahmed Sharac oo si dhow la shaqeeya dowladda Turkiga, taasoo si weyn uga caraysiisay Israa'iil. tani waxay xilligaasi ka dambeysay loolanka ka soconaya gudaha waddanka Syria waxa uu ahaa mid si weyn u ballaaran. dowladda Turkiga ayaa tilmaantay in saldhigyo kala duwan oo ciidamo ay ka samaysanayso gudaha waddanka Syria iyadoo si dhow la shaqeynaysa baa layidhi ciidamada qaranka waddankaasi tababaro kala duwan oo dhinaca sirdoonka iyo militariga ana sii doonta arrimaha amnigana ay si weyn isaga kaashanayaan. sidoo kale waxaa dhowr jeer oo kala duwan dalka Turkiga ay wafuud ka socotay ay booqdeen gudaha waddanka Syria. dadka sida weyn loo soo dhaweeyo waxaa ka mid ah agaasimaha hay'adda MIT-da dalka Turkiga Ibrahim Kalin oo xitaa la arkay madaxweynaha waddanka Syria ee talada hadda jooga Ahmed Sharac oo gaarigiisa gaarka ku wada isagoo darawal u ah, taas oo dunida si weyn indhahiisa ay u qabteen xilligaasi oo lagu tilmaamay in dalka Turkiga iyo Syria ay noqonayaan mataana isbarbaryaala. wixii xilligaasi ka dambeeyay Israa'iil ayaa dareentay khataro waaweyn oo amni, waxaana ay bilowday koonfurta waddankaasi inay weeraro ku qaado. goobaha sida weyn ay weerarada uga dhaceen waxaa ka mid ah gobolka ay ku badan yihiin dadka Druusiga ah, iyadoo dhibaatooyin kala duwan oo halkaasi ka dhacana lagu eedeeyey in gobolka loo yaqaano As-Suwayda ay ka goynayaan baa layidhi dalkaasi xilli xiisadda gobolku ay aad isu sii tarayso. haddaba su-aashu waxay tahay suuragal ma tahay dagaal soo degdega oo dhex mari kara Israa'iil iyo Turkiga? Rajab Tayyip Erdogan ma intii ay goor tahay ayuu bilaabay inuu ka feejignaado isbedelada waaweyn ee dhacaya? su'aalahaasi waqtiga ayaa ka jawaabi doona. haddii aan sii eego wararka kale ee caawa ugu waaweyn, dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya oo hormuud u ah dowlado kale oo carbeed ayaa ku dhawaaqay in Israa'iil ay wadato xadgudub ka dhana gudaha waddanka Syria, waxayna mar kale ku celiyeen taageerada midnimada dhuleed ee waddanka Syria. Israa'iil waxay dadaallo badan ku bixinaysaa sidii gobolka Suwayda looga jari lahaa qaybo ka mid ah waddankaasi, islamarkaana xiisadu ay u noqon lahayd mid kulul. bayaan ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa si adag loogu cambaareeyey faragelinta joogtada ah iyo xadgudubyada Israa'iil ee ka dhanka ah baa layidhi madax banaanida iyo dhulka jamhuuriyadda carbeed ee Syria, gaar ahaan xilliga ay kordhayaan qalalaasaha iyo xiisadaha ka taagan gobolka Suwayda, sida ay ku waramayaan mas-uuliyiinta warkan laga soo xigtay. bayaanka ayaa ka soo baxay wasaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in ficilada Israa'iil ay yihiin xadgudub cad oo ka dhana qaanuunka caalamiga iyo heshiiskii 1974 ee celinta ama soo celinta dhulka Syria ee Israa'iil ay hore u qabsatay. Sacuudiga ayaa hoosta ka xariiqay taageerada buuxda uu hayo dadaalada dowladda Syria si ay uga jirto weerarada sugidda amnigooda, xasiloonida iyo adkeynta haykalka dowladnimo ee guud ahaanba waddankaasi ka dhisan. wasaaraddu waxay sidoo kale caddaysay in boqortooyadu ay si buuxda uga soo horjeedo dhammaan wicitaanada ama abaabulka kala qaybsanaanta Syria, waxaana ay ugu baaqday dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Syriyaanka inay adeegsadaan xigmad, wadahadal iyo midnimo u dhexeeya Syriada cusub oo midaysan si guulo waaweyn loo gaaro. ugu dambeyntii Sacuudiga ayaa ugu baaqay beesha caalamku inay garab istaagto shacabka waddanka Syria kuna taageeraan sidii loo heli lahaa nabad waarta iyo midnimo dhuleed oo xasilan, waxaana la dalbaday in la qaado tallaabo adag oo dhab ah oo loogaga hortagayo xadgudubyada joogtada ah ee Israa'iil ay ka wada gudaha waddanka Syria.
arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo sidoo kale dowladaha qatar iyo masar ay si weyn u diideen tallaabooyinka israa'iil ee horinta colaadaha waddanka syriya ilaa iyo hadda dowladaha sida weyn indhaha loogu hayo balse la filayo in ay tallaabooyin qaadaan waxaa ka mid ah dowladda turkiga uu hogaamiye Rajab Tayyip Erdogan. dalalka Iran iyo Australia waxaa ka dhex bilowday xiisad adag oo diblomaasiyadeed oo xitaa sababtay ciidamada labada qaran ee wadamadaasi in loo kala aqoonsado ururo argagixiso oo caalami ah oo muhiim ah in si weyn looga hortago. dowladda Iran ayaa si kulul u diiday eedeymo ka yimid gudaha waddanka Australia oo ku saabsan in Iran ay ka dambeysay laba weerar oo la sheegay inay ahaayeen kuwa nacaybka dadka Israa'iiliyiinta ku salaysan oo ka dhacay magaalooyinka Sydney iyo Melbourne. Iran ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in si siman ay uga jawaabi doonto tallaabada dowladaha sida weyn uga soo horjeeda isla markaana dowladdaasi lagu soo ariyay safiirkeedii gudaha dalkaasi Australia joogay. afhayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee dowladda